السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسولي هذا برنامج كنا مندرة رياكشن وأن إن كوت رجلنا مرور بإن نكو إفينا وحيابها كتير اسمه منك ديجان كمندرة ما جاي أنا وحسن أفتين محمد دواء سؤال وعلى وحمانت وهذا الدونا حقرات كتيرتو أما قاعد بدحين كتيرت اسمه منك ديجان كمندرة قاعد بدحين تاس أما حقرات تاس السمايين مسؤولين توصل رئيس اسمه منك waxaan u malaynayaa in qiradaas oo ka dhalatay muuqaalo ugu dambeeyay oo laga soo sameeyay qaar kamid ah ama hoggaanka ismaamulka deegaanka Mandera muuqaalkaas oo laga soo sameeyay Ali Ibrahim Roba oo ah gabanaga hadda xilka u haya ismaamulka deegaanka Mandera muuqaalkaas waxaa laga soo sameeyay xilli Ali Roba oo booqday dad lagu dhibaateeyay Dabasiti oo ka tirsan ismaamulka deegaanka Mandera halkaas oo ay ku dhibaateeyeen ciidamada dawladda la sheegay in ay macnaha dad ay jirtileen hantina meesha ay ku kubeen in mas'uulku meesha uu tago ama mas'uuliyiin iyo deputy governor iyo deputy governors iyo mas'uuliyiin kale oo ka socda ismaamulka in halkaas ay tagaan oo dadka ay macnaha dhibaatada la soo qaybsadaan waa wax wanaagsan oo loo baahan yahay mas'uul walbana loo baahan yahay inuu sameeyo dib hadii uu dhaco inuu dadka dibkiisa la qaybsado hadii dheef ay jirteen in dadka dheefta si sinaana ee dibkaba sinaana loo qaybsado isbuucii ka horeysana dhacdo noocaas camal ah oo dhimasho ay jirtay waxay ka dhacday Ceelwaaq gabana Cali Roba sidii loo baahnaa buu sameeyay si wanaagsan buu u falceliyay in goobta uu tagay dadkii uu murugada la qaybsaday dadkiisana uu la soo hadlay uu soo qanciyay waa wax loo baahan yahay mas'uul walba oo madaxaayo dadkiisa loo baahan yahay inuu dhibkii dheefta la qaybsado laakiin markii dib taariikhda loo raaco ismaamulka deegaanka Mandera dhacdooyin noocaas camal ah way ka dhaceen ismaamulka qaybihiisa kala duwan marka la fiiriyo sidii loogu falceliyay mas'uuliyiinta ugu falceliyeen gaar ahaan Cali Roba gabanaga Mandera County si ugu falceliyay dhacdooyinkaas taariikhda ay xusayso 2017 soo dhacay iyo kuwa hadda 2018 isbuucii ugu dambeeyay ka dhacay county-ga sidii loogu falceliyay markii dib loo fiiriyo xeebaha waxaad ka dheehanaysaa ama ka fahmaysaa in gacan bidixin ama xaqiraad ay ka jirto dadka bulshada degan ismaamulka deegaanka Mandera Cali Roba meel walba oo county-gaas kamid ah si sinaan ah oo cadaalad ah ay u soo doorteen laakiin ma aqaan sababta dadka macnaha ma aqaan ma fahmi karo sababta dadka qaar marka dhacdooyin ay ku dhacaan looga taga meeshooda macnaha loola soo qaybsaday murugada dadna oo county ka tirsan marka murugada noocaas ama ay qabsata aan loo tagin dib loo raaca taariikhda ismaamulka deegaanka Mandera dhacdooyin noocaas camal ah oo fool xumo badan ayaa ka dhacay laakiin sidii looga falceliyay markii dib loo fiiriyo waxaad u malaynaysaa in xaqiraad ama gacan bidixin ay ka jirto mas'uuliyiinta waxa loo baahan yahay Cali Roba uu u weyn yahay markii ismaamulka deegaanka Mandera dhacdo noocaas camal ah muruga ay ka dhacdo si sinaan ah in dadka bulshadiisa ula qaybsado laakiin ma ahan in dad qaar oo ismaamulka kamid ah inuu u tago dad qaar oo san u tagin dhacdooyinkaas aan sheegay waxa kamid ah dhacday 4 July 2017 ka dhacday Fino oo ka tirsan district Lafay dhacdo noocaas camal ayaa ka dhacday oo 5 qof lagu dilay 4 rag ah iyo hal haweeney ah oo waayeel ah da'deeda lagu sheegay 85 sano jirtay oo halkaas ciidamada dawladda civil sheegay ay macnaha ay ku dileen oo macnaha lagu soo arkay magaalada ama tuulada meel ka baxsan in lagu aasay oo dad xoolo jir ay soo sheegeen runtii mas'uuliyiin kala oo macnaha deegaankaas xildhibaan ka ahay ayaa si wanaagsan dadkii ugu falceliyay oo murugada la qaybsaday laakiin su'aasha meesha ka taagan waxay tahay sababta Cali Roba uu la qaybsan waay dadkaas ama uu tagi waay maxay tahay waxaan malaynayaa Dabasiti daraad in macnaha dhimasho aysan jirin laakiin halkaas oo dad ay ku waayeen 5 qof oo 4 rag ah iyo hal haweeney oo 85 jirta xanuunkaas wax ka weyn ma lahan laakiin gabanaga muusan sidoo la rabay ama sida hadda uu falceliyay dhacdada ugu dambeysay muusan ugu falcelin marka su'aasha halkaas bay kala latay muuqaalkan kulli waan ilin wadaag doonaa muuqaalkan hadda kor ku arkaysaan oo laga soo jeedo oo laga sameeyay dhacdada ugu dambeysay ku tulowa oo ismaamulka deegaanka Mandera oo si wanaagsan ugu falceliyay wax loo baahan yahay laakiin waxa la isweydiiyay sababta maxay tahay sinaan maysan ka jirin
dadka countiga degan ama bulshada countiga Mandera dhammaantood miyaysan u sineen in murugada iyo dhibka lala qaybsado maxay tahay sababta keentay in Cali Rooba uu Ceelwaaq dhacdada ka dhacday ugu dambeysay uu u tagay dadkiisa oo bulshada u tagay uu macnaha dhibkii meesha ka dhacay uu la soo qaybsaday sida la mid ah Dabasity dhibka ka dhacay wax dhimisho ayadoo aan la sheegin uu la soo qaybsaday oo dad macnaha la tumay kaliya xamal oo leeyahay yihiin marka sababta marka waxay tahay sababta maxay tahay oo finno dhacdadaas 2017 iyo dhacdooyin kale oo ka daran ay ka dhaceen deegaankaas marka loo fiiriyo uusan ugu falcelin maxay tahay sababtaas marka su'aashaas dad badan baa isweydiiyay kulay anigana muuqaalkaas waa la soo gudbiyay sidaas aan reaction kugu bixinayaa mar walbana marka waxaan aniga Mandera reaction ka loo sameeyay in bulshada loo iftiimiyo waxyaabaha mugdiga ku jiro Cali Rooba aniga dama eedeynay laakiin waan amaanayaa hawsha wanaagsan oo ka hay ismaamulka deegaanka Mandera laakiin xaqiraadaas oo soo korortay isbuucan ayaa macnaha su'aalo badan ay ka yimaadeen waxaan u maleynayaa in sida ugu wanaagsan si sinaan ah ama si wanaag uu ku jiro mar walba in bulshada qaybeeda kala duwan oo deegaanka degan looga falceliyo haddii dhacdo xun ay dhacdo in murugada iyo lala qaybsado dadka haddii macnaha wanaag wax wanaag ay jiraan wanaagga si sinaana dadka countiga degan dhammaan bulshada qaybeeda kala duwan looga sinaado marka xaqiraadaas way jirtaa waana wax cusuban maahan dhacdooyin badan aan goobjoog aan soo ahayn mise aan maqalnay marka loo barbardhigo dhacdooyinka sida looga falceliyay iyo kuwa hor aan looga falcelinin qofkii aqli lah wuxuu ku dareemayaa meeshaas marka in xaqiraad weyn ay ka jirto aad ba u maasantiin countigana wixii ka dhaco waan ugu hubaal anigana bulshada aan u soo iftiimino aad baad u maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh